اعترافك الصومالي له وهالشيء لبا شيء الله كلا قيبيو معها سكارة لبا تنو الله كلا قلم مله لمن كافتيا شاي عدمانتا سيدا كل هذا هنا وأيان در محمود وأنكو صحي وهذا الكلام كتيرتي حفيز إني كفرتي قدس أي سومالان كفرتي حفيز ما هو السفارة رسمية وأنا دلكي كوبادي سفارة رسمية نوفرة مركب معها حفيز عادية وإن كلا جرتوا ريادة دبلوماسية دي لو أديك سدو دولة نمده دولة اللون مرتدى يهي أياب بحسه أو قلانشه ماشي كده تنيسو choice كاغا معها ورنا وقفنا قصب بين وقفنا كاكحين مين هدا يسوق كسوق قاران إن مال وادين كأركان وكاي مادان يا إلهي أنا يندت كدي أنا البابي وفري وحاه الرئي وأنا ببلغ وشيء ما أنت سأديو كلفتين ونشيو كاينو إنه كوجلاي حرم كاينو كوجلاي يا أدبيني سي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وحن ما أنت دوني إن جواب كوبان سيو قدومية حسبي كاه محمد عاش عبدي وما أنت صحافة كهذ لي أرهم بدنا إسكو قاضي أو إسكو ديينو شعب كنا شهوريريو مدحوينها جمهورية الصومالي الآن أو اعتراف كي كوجوليستي وقت قدير للدونيين ومرمريو وحان شيرين أو يعني سيان صحاحين وعبره أما أتلمامو أقون سجي الصومالي الآن أو مدبدو كليو hay-adaha dawliga ah iyo xisbiyada iyo maca kuwa brifatka ah haddii aanay lahayn qorshe iyo istaraatiijiyad had iyo jeeraale waxaa ku yimaada markay arrimo adkaadaan ayaa hogaamiyaheedu dawakaayo uu ku jaaha wareeraa ama ku dayooba waxaana la odhan jiray berigii hore Soomaalidu waxay odhan jirtay reerka aan sahanka lahayn duhurku indha beelaha sidaa waxaa la mid ah hanaanka dowladnimo ama xisbiyada haddii aan hogaamiyuhu aragti lahayn oo afmishaarnimo iyo dhugdhug wax ku wado waxay marka dambe arrimo markay adkaadaan bay ku caddaataayo yacni uu meel wax u wada garan waayo ama waxay soo gaadhaan taageerayaashiisiyo intii uu garanayay bay soo gaadhaa taageerayaasha intii garanayay bay soo gaadhaa marka la soo gaadho ayuu ku asqoobaa waxa ka muuqatay maxamuud inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku durayay ilaa tashan waxaan anigu joogay ugu yaraan 2 ama 3 jeer oo madaxweynuhu xisbiyada qaranka tala ugu yeeray oo ay maalintii koobaad maalin ahayd isagu uu sheegay waxa la yaab leh inuu madaxweynaha oo la tashaday ku durayo inaanu la tashan balse isagu xisbigiisii aanu la tashanno ay kaga aragti duwan yihiino maalintii ay ka hadleen arrinta tan waxa weeye aqoonsiga Soomaaliland ee ay damceen inay kala qaybiyaan uu ku khilaafay gudoomiye ku-xigeenkiisa Jamaal aadan diiriye way maantadana saxaafadda ka hadlayeen xildhibaanadii xisbiga ka وأوجيدين قبيتي محمد إبراهيم أو هراء شاعي وتوهنو كاني إنه ديدين هي أقونسية محمود حاشيو إن كوبنا وحلوكي بس عن حسبك كلا عنو كدورين أرنت نوع عصا أيها صو شعب حضي وأقونسية إنه ديدين هي محمود نوع حموقتينو كوي رأس قوبي وحن لا صاحب nin horaa la yiri masal caante maanta oo kale ayaa nugul ku saydhma marka haddii ay marka arrimuhu iska ka galaan aad garan weydo waa la hojiyaayo ayar baa dhulka la dhigaa gaar ahaan arrimaha qaranka laguma degdego waxaan ku oran lahaa اعترافك Soomaaliland waa hal shay laba shay oo la kala qaybiyo maaha sakaara laba tuno la kala qalan male bareero ama waxaad tiraahdaa sidii madaxweynuhu kugu yidhi ama bareero waxaad u bareedhaa inaad aqoonsiga ogolayn ama waxaad tiraahdaa waan ogolahay qudusna ma ogoli aqoonsigana waan ogolahay waxaad shacbiga ku jahwareerin karta maaha shacbiguna intaa uu ka koran yahay
waxa muuqatay inaad isku dayday arrimo diineed inaad murug ku geliso horta sax maaha marka hore in arrimaha arrimaha siyaasadaysan ama siyaasadda ama mawaadicda noocaasa in la diimeeyo sax maaha aqoonsigu asal ahaan waa xidhiidh diblomaasiyadeed ama xidhiidh siyaasadeed xidhiidhkuna marka laga hadlayo arrimaha diinta marka laga hadlayo dee wuxuu galaayo culimmadu inoo sheegtay anuu caalimo imana doonayo inaan tacamuq iyo isku dhex tuur sameeyo laakiinse waxay inoo sheegeen inuu macaamilka galo macaamilada lala macaamilayo gaal iyo muslim cidduu doonaba ha ahaadee uu gelayo marka waa xidhiidh arrin diimeed oo iminka uu madaxweyne Cirro wax diimeed diiday ama dafiray meesha ma taalo waxa arrintaa xidhiidhka ah ayay ku eeg tahay aqoonsiga qastiga loo leeyahay iyo ujeeddaduna waxay tahay waa siyaasad waa in Somaliland go'doonka ka baxdo ay aqoonsi hesho ee beesha caalamka ka mid noqoto waxaana qawaacidda diinta sharciyada islaamku ay tilmaantay waliba kuwa ugu waaweyn qawaacidu shariica ka mid ah in la yiraahdo al-umuru fi maqasidiha umuurtu waa ujeedooyinkeeda maxaa looga jeedaa oo marka shuruucda laga hadlayo kale ee caalamigaana la yiraahdo yani maxaa qofku u jeeday consent ma ka aha arrinta ma u jeedo si ujeedala ma u galay mise waa arrin aanu isagu u jeedin oo cid kale u duday ama u fasirtay marka aqoonsigu waa ka noocaas marka arrimaha xagga diinta iyo culimadu ay isku qaaday maxamuud culimadu dawaa warithatul anbiya wixii shariica iyaga la weydiinaya madaxweynaha ogaalkay uu yeedha xiriir wanaagsan baa ka dhaxeeya isagana waanu soo jeedinaya in albaabkiisu sidii ugu ballan qaaday u furaadaan iyagana waanu soo jeedinaya inay hadday nagaba dhacaan ama madaxweyne ha noqoto ama xisbi ha noqoto ama xukuumad ha noqotee haddii wax qalada ay dareemaan inay noo sheegaan noo nasteexeeyaan noo yimaadaan waxaanu xusayay oo bal haddana dhaafsanaa in diinta loo dhaariyey madaxweyne Cirro in diinta loo dhaariyey madaxweyne isagaa diinta loo dhaariyey cidda ku labaysaana waa culimada ama koobaad waa culimada marka arrintii marka laga hadlayo arrin diimeed labadaa qolaa isweydiinaya haddii si aynu eegnaba bal dariiqiisa haddaan eegaba muqaddasaadka islaamku uu leeyahay waa la yaqaanaa marka bal waxa isweydiin leh marka laga hadlayo uu leeyahay dhulkii barakaysnaaba uu ka furay ee uu ku eedaynayo madaxweynaha horta dhulka barakaysan waa intii ma shaamba ma qudus baa ma masaajidka inta aynu aragnay masaajidku inuu barakaysan yahay laguma murmo muslimiintuna inta caamkaynu aragnay ardu shaam bay ard mubaarak ku tilmaamaan wax qudus gaar uga soocaya ma inaan arag qudusna waxay ka mid tahay ardu shaam bal ku darso Tel Aviv oo ku murmayo muxuu Tel Aviv uga furi waayay Tel Aviv lafteedu ardu shaam bay ku taalaa Tel Aviv magaceedii hore wuxuu ahaa Yava oo waxa la oran jiray magacii Carbeed loo yaqaanay Yava waxa taariikhda islaamka waxaana ka mid yihiin labaduba isku sibay muslimiintu u sheegan jireen miyay halkay tahay mowduuceeda gali maayo manuu gelin madaxweynuhu waxay isku hayaan Falastiin iyo Yahuud waa wax iyaga u yaalo oo gaar ah laakiin markii arrimo diimeed noqoto iyo arrimo muslimiinta u khaas ah ma doonaynaan galo wixii ay siyaasad isku hayaan waa gaar waxay siyaasad ka dhaxeeya waa gaar inagu dawladdeena uma qorshaysna xisbiga iyagana uma qorshaysna waxa muslimiinta dhibaato u geynaya basharku qalad waa ka dhici karaa laakiin se uma naan qastiin Cirrana kuma ogin wax qastiyo noocaas oo qastiyay sidoo inoo sheegay waxa kaliya ay tahay Somaliland baa loo doortay Somaliland buu ictiraaf u doonay dalkii ictiraafayna wuxuu noqday Israa'iil saaxiibtinimo iyo xiriir buu la samaystay wax sharci oo diidayna ma inaan arag waxaan arkay arinta uu ka sheegay si qaldan u sheegay ee aan fadhiyay ee ahayd madaxweynuhu inuu yiri waxba lama aan soo saxeexan laakiin si waxba la saxeexan maayo ma oran dad badan baana joogay madaxweynuhu ma oran waxba la saxeexan maayo sidee xiriirku waa ansaxaya sidee noqonaysa haddaan waxba la saxeexan dawladdu waxbay isla gaaraan waxbay yani ay wada saxeexdaan wixii ay isla gaareen isla garteen haddaan saxeexan
sidee ba heshiis u dhacaya sidee xidhiidhku wanaagsanaanaya waa wax la yaab leh waxa sidoo kale iga muuqatay maxamuudo madaxweynaha ku duraya ama waxa weeye ugu baanaya waanu ku soo saarayo weliba si reeraysan buurtaanu kaa soo saarayo waanu ku soo saaro doonaya inuu magacii reerka aanu ka soo jeedno uu reernimo ku sheegto bal ama reernimo hadal horaad u eedayo aad afka reeraha ku hadashay ama xisbi ku hadal labadan isba qabtaan waana guuldar hadduu labada qofkii isku qaso madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aaminsanahay in Ilaahay ku bixiyo isagoo ku soo saaray nimanka abtiyaasha ee aad maanta sidaa ku leedahayna waa ayaan daro iyo abaal daro Maxamuud waxaan kugu ogaa waxyaalaha qaar baan kugu aqaanay laakiinse waxyaalaha qaarkood waa igu cusub yihiin waxaan ku aqaanay Maxamuud anigu intaan ku aqaanay xoogaa kalsooni darra waan ku aqaanay laakiinse abaal darrada kuma aan ogey waxoogaa dadku ku sheego oo arrin shaa'ic ahoo xagga runta marka la sheegay dadku ku sheegana waan ku aqaanay laakiinse fulaynimo kuma aan ogeyn Maxamuud waxaan ku leeyahay saaxiib ceebun calaykiinad waxaad adigu samaysay dadka ku durto waxa adiga uu qaba kaaga cawday oo babliga inaad xaramkii Ilaahay muqaddasaadna waad sheegaysaa xaramkii Ilaahay ee aan la isku hayn qibladii muslimiinta Makka baytullaahi alxaraam inaad heshiis kula gasho kaga baxday waxa horeeyay oo anigu aanan babliga u sheegay maanta si aad u kalifteen u sheego kaynu inagu ku galay ee xaramka aynu ku galay ee aad beenisay ee ay markhaatiga ka hayeen Cali Saciid Reegal iyo Ibrahim Siyaad ee aynu niri waar iyadoo leynala joogo waar heshiiska ma galay aad qirtay aniga been layguma yaqaan xaasha marka adigu ka baxay inaad ciro tiraa muqaddasaadkii buu caynkan ku sameeyay ceebun calayk Somaliland aqoonsi bay heshay Israa'iil bay ka heshay way aqoonsatay Maxamuud waan ku saxee waxa hadalkaaga ku jirtay xafiis inay ka furatay Qudus ay Somaliland ka furatay xafiis ma waa safaarad rasmi ah waana dalkii koobaad ee safaarad rasmi ah oo fura marka ma aha xafiis caadi ah waa inaad kala garato ereyada diblomaasiyadeed ee loo adeegsado dawladnimada waxaan ku xasuusinayaa xeerka caalamiga Vienna Convention wuxuu tilmaamayaa dawladda loo martida yahay ayaa bixisa ogolaanshaha meeshii ku dejinayso choice-kaaga maaha qofku meeshuu doono intuu dawlad u yimaado halkuu doono ay dejiya ma yiraahdo dawladnimadu waxay leedahay hanaan Somaliland xaaladeeda qof waliba uu garay in ragina uu garay nacsi loo sheegi maayo meel ay wax ka kala doorato ma joogin waxa duruuftu ku khasabtay inay doorato oo ay aqoonsiga doonato waanay u hiilisay Israa'iil Somaliland isbarbar taagtay maanta iyo markii hore ee aynu aqoonsiga 1960 helay labadaba dalkii koowaad aqoonsaday ahayd Qudusna dhinaca ay ka fureen iyaga gacanta ku haya yaa lahayn jiray yaa leh waa baab kale laakiin iyaga gacanta ku haya annagu buranka maanta gali mayno annagu dan baa geysay Somaliland maslaxad baa geysay daruuro siyaasadeed baa geysay intaasaan annagu la soo taaganahay ma lihin annagu waxaanu xalaalayno waxaanu xaaraantamayno midna ma lihin madaxweynahan afkiisa kama soo bixin aday kugu koobanta ama boosishi ka qabso ka hor kaale ictiraafkiyo diid oo adiga la xiniyaan ku hadlayaa cadayso oo halkaa ula bax horena waa kuugu sheegeen inaad diidan tahay ha cadaato ama Qudus iyo meeshii laga furaba hadday ardu Shaam noqoto sida culimadu yiraahdeen ardu Shaam meesha barakaysan noqoto oo ay waxa weeye u sinaadaan barakada Qudus iyo adiga hadalka ku dareeyay meeshii barakaysnayd Qudus iyo u sinaadaan oo labadaba ay gacanta ku hayaan iyo Tel Aviv bal waxa ay maanta ku kala duwanaan doonaan adiga sheegi waa marka sharci laga hadlayo waxaan leeyahay arrimaha tacamuqa iyo isku dhaxtuurka nafku ma laha shariicada iyo diintana laguma gabado oo waxa weeye gabood lagama dhigto waa arrin qaldan runtii inuu qofku arrimihiisa uu ku hagaajisto waxaan leenahay annagu waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo shariicadu ogoshahay oo ama naga diimoon ama aanu qaladnay in naloo saxo nala weydiiyo nalagala doodo loo yimaado madaxweynaha iyo intii diinta u qaabilsanayd oo arrintaa laga wada hadlo oo la isla eego laakiinse arrinta ictiraafku waa arrin
Somaliland iyo 5 sano tugaysayo waxa way reer Somaliland maanta waa wax koobaad isku raacsan yihiin waxaan leeyahay waar ha u yeelin hor iyo qod iyo garaafo iyo god ha u yeelin aad ku durayso ama bareed oo halka isla taag ama waxa weeye ka noqo oo raac waxaan ku soo gabagabeynaya waxa iga muuqata Maxamuudow in aad soo gaadheen intii aad hogaaminaysay oo aad hadalka ku darsatay oo aad ka hadlaysay markii aad meel aad u tilmaantay weydayna tiraahdo wadanayba iyo dawladana shaqo-shaqaynaysa waranagu qofna qasbi bayno qofna ka kaxayn mayno haddayse ku soo gaaraan oo inaad meel u wadin ku arkaan oo ka yimaadaan yaa ilaahay anagu yaan dadka diidan anaga baabay way furan cid walba waan soo dhaweynayna qaar baa shalay noo yimi kuwa hore noo yimi adigana kuwii ku tago waa haniyo waar waxaan ku leeyahay aqli iyo aragti iyo aqoon iyo hogaamin aad xisbiga ku hogaamisaa lagaaga baahan yahay waxba halka kuuguma jiraan اعترافك يا أقونسك السومال عن هالشيء وأنا ماشي وقت كيد بعد سكوت قاضي وحن أقول لها صاحبك مشكلة دادو أنا وين نسكراننا أنا كوش هيجو وحي أصل كيدو كو أرورية قرش حمية أركت الآن وحلا بيا وايتها حقيقة عاد فرسان تايو خبرت على ذا تكو باني سامالين تعيل فين شو وحي كوش هيجن إن دعو ضغطه وعدي بعد أقبل لا ورعد هذا إسك أقبل وإسك بركيسنيدو أو وناكسنو قرن ماذا شعلنا ودي شري وعد هذا إسك أقبل وإسك أوريري إسك أقبل وحوي حسبنا ما هذا إسك وضو إن شاء الله تعالى حدي عاد كجود بكرة ويدو أو يكون فلان ويدو هذا واحد أورانا يسوق تهي وحلاقة شوابنا ما هذا الشيء وعن كلاه ما أنت هذا البك وجمتشرتي حسبي قاعد يصو دل كنا هكلا قيبين وهكو سمين ما أنت قوقب يفول حمية قبيات هكو سمين ما تنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.